11 qof ayaa ku dhimatay rabshadaha habeenka Khamiistii iyo Jimcihii ka dhacay magaalada Caracas dalka Venezuela. Tirada dhimashada ayaa gaaraysa 20 qof tan iyo markii ay bilowdeen mudaharaadyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi Venezuela Nicolas Maduro tan iyo bilowgii bishii Abriil. Xeer ilaaliyaha dalka ayaa sheegay in mudaharaadyada Jimcihii iyo Khamiistii ay ku dhinteen 11 qof oo da'doodu ay u dhaxayso 17 sano jir iyo 45 sano jir. Waxa uu sheegay in qaarkood ay ku dhinteen dab qabsaday halka kuwa kalena ay ku dhinteen toogasho lagu dilay intii lagu guda jiray mudaharaadyo ka dhacay xaafadda Elvel. Waxa ay ahayd dagaal xun ayuu yiri Carlos Yanes oo 33 jir oo degan xaafadda Elvel. Militariga iyo booliska waxa ay tuurayeen rasaas iyo sunta indhaha ka ilmeysiisa habeenkii oo dhan ma aan seexan. Gaaska indhaha ka ilmeysiya iyo xaafadaha noogu soo galay waxa aan seexanay 3 habeenimo markii rabshadaha ay kala yaraadeen. Xeer ilaalinta dalkaasi ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso baaritaan waxa dhacay habeenkii iyo Khamiistii. Dalka Venezuela waxa ruuxay tan iyo 1 bishii Abriil bilowgeedii mudaharaadyo ay dhigayaan mucaaradka ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha anti-wadaagga dalkaasi Nicolas Maduro. Dalka ayaa ku jira xaalad siyaasadeed oo xun haatan.